xafladda caleemasaarka madaxweynaha ahlu sunna ee gobolada dhexe ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb. Warbixinta warkaasi waxa noo soo diray wariyahayaga Isxaaq Xirsi Maalin. munaasabadani ballaaran oo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolada dhexe ayaa ahayd mid lagu caleemasaarayay madaxweynaha gobolada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan ee dhawaan lagu doortay magaalada Dhuusamareeb. xubnihii ka soo qayb galay ayaa isugu jiray mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan maamulka ahlu sunna, siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo odayaal dhaqameed. munaasabadda ugu horeynba waxaa ka hadlay bulshada qaybaheeda kala duwan. inta maamulkan waa in laga siiyaa doorka ugu muhiimsan waa yaana laga tignaaya haday kala dagaaladayna. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. ciidii ay soo dhowdahay maalin aan caleema saaranayno madaxweynihii hogaamin lahaa deegaanadan sanadada soo socda. aad iyo aad bay noogu tahay maalin farxad leh oo aan farxadeeda la soo koobi karin. wuxuu yiri cid adkiina caalamka ay maqlay cid aad rabtiin marka waxaan leenahay horta sideedaba caalamka hana maqlay horta cid arta cadeeya maanta waxaan doonaynaa oo waxaan maqlaynaa oo waxaan aragnaa oo waxaan ka baxnay oo waxaan u tashanay sida u gaalin horumar annagoo u diyaar ah inaan dhaqaale ku bixin, annagoo u diyaar ah inaan cid xaqirin, annagoo u diyaar ah sida u gaarno dowladda kale ee aan la tartanno. mid leegna waxaan ka wadaa arugu waxaan ka yimid gobol qaybta waqooyi gobolka Mudug sidaas oo kale oo hambalyo badan huwan hamuun badan qabta oo ay runtii ka dheehanayaan kalsooni, walaalnimo, midnimo, mawado, maxabo, yani mataqana xasilooni ay ka dheehanayaan ayaan dad salaantu waxaan uga wadaado madaxweynaha iyo ku-xigeenadiisa iyo dawladda halkan laga dhisayo. si badan leh oo aad iyo aad u nasiib badan oo maanta ilaahay uu u dhiibay taladii iyo xukunkii gobolada dhexe inay ummadda ku hogaamiyaan diinta islaamka ee xaniifka ah ee saamaxa. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay xildhibaan Cabdicasiis Sheekh Yuusuf. waxay tahay halkan aniga deegaankaygii weeye, official baan ahay, constituency-gaygii weeye, ama meeshii haddii lay dooranayo laga soo dooran lahaa. muddadii dawladdaanu dhisantay oo madaxweynaha la doortay structure kaleetana la sameeyey oo ku-xigeenadana waa aan joogo. waxaanaan u xambaarsanahay dawladdaydii inaan u sharaxo waana ay aqbashay saan idiin sheegay. hadal aan intaas ahayn hadduu ayaga ka soo yeero waa hadal colaadeed iyo hadal dagaal ee ma ahan mid aan ku wada joogi karo oo dawladda Soomaaliya iyo international community aan ku wada joogi karo ma ahan oo nooma yeerin karaan. ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo maanta lagu caleema saaray magaalada Dhuusamareeb. oo idin soo dhaweynayay oo waxaad dhisateen ku faraxsan waxa weeye dawlad goboleedyadii geyiga Soomaaliya ka jiray weeye. waxa idin soo dhaweeyay oo idin tahniyadeynayay waxay ahaayeen ra'iisul wasaarayaalkii Soomaaliya, waxay ahaayeen xildhibaanadii Soomaaliya. annagana waxaan ilaahay ka baryaynaa kuwii ka soo dhalaala waxa loo dhiibay ee ummaddu sida ugu faraxday u farax geliyay ilaahay inuu naga dhigo. kooda bishan ayay ahayd markii magaalada Dhuusamareeb lagu doortay madaxweyne Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan loona doortay madaxweynaha saddexda gobol ee Galgaduud, Mudug iyo Hiiraan. Isxaaq Xirsi Maalin, TV-ga SBC, magaalada Dhuusamareeb.